السلام عليكم كلنا وعن دقيستيال كسو دوادا برامجka xulka oo hadaan kala adag bartaan idaacada himilo ee magaalada muqdisho qodobadaan adeeynana waxa kamid ah raadsan oo guul ka gaartay kulankii shalay ee ciyaarta horyaalka Soomaaliya iyo Elman oo galabta la ballansan Jasiira Atletico Madrid oo xalay ka rabtay kooxda Liverpool horyaalka Champions horyaalka qaaradda Yurub PSG oo soo laabasho ku sameysay kooxda Borussia iskaga xaadirsay wareegga 8 daqiiqo diiwaan geliyay kulamadii laga ciyaaray Champions League kulamada caawa laga ciyaari doono Europe League Tottenham oo qorsheynaysa inay dalab ka gudbiso laacib ka tirsan Fenerbahce Bayern Munich oo qayb ka noqotay loolanka loogu jiro laacibka Willian Borussia Dortmund oo u sheegtay United Liverpool wadada kaliya ee lagu iibin karo Sancho United City oo ku dagaalamay Harry Kane iyo wararka suuqa iyo wargeysyada guul ka gaartay kulankii shalay ay ciyaartay horyaalka Soomaaliya iyo Elman oo galabta la ballansan kooxda Jasiira Taariq Almuuco ayaa si dhow ula socday Haydar kooxda kubadda cagta ee Raasan shalay ciyaartii ay la yeelatay kooxda Rejo waxa ay ahayd ciyaar ka tirsaneyd horyaalka Soomaaliya Premier League koox walba kulankeedii 11aad ay ciyaaraysay wajiga labaad ee horyaalka kulamadii labaad ee koox walban ciyaarayeen ciyaarta shalay qaybta koowaad waxa lagu kala maray gool yeebar oo ay guusha ama ku hogaaminayeen ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Raasan waxaana shabaqa gaaray ciyaaryahanka yiraahdo Mohamed Kenled magdib la soo laabtay iyo gool kale heleen ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Raasan Abuukar Kidoko ayaa shabaqa gaaray kubaddu geeska kala soo galay iyadoo ciyaartu goolkii saddexaad ay heleen mar kale ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Raasan Mohamed Kenled ayaa mar kale shabaqa gaaray iyadoo gool ay soo celiyeen ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Rajab ciyaaryahan la yiraahdo oo bedel ku soo galay oo ajnabi ah ayaana gool u soo celiyay ciyaartu 3 gool iyo gool ah ay goolka afraad heleen ciyaartooyda kooxda Raasan Mohamed Kenled ayaa shalay kacsanaa waxa uu dhaliyay goolkii saddexaad ee ciyaarta Hadrig ayuu shalay ka dhaliyay wuxuu noqday ciyaarankii ugu horeeyay oo Raasan horyaalka Soomaaliya 3 leeyam Hadrig u dhaliyay ciyaarta ugu dambeyn waxay ku soo ilaatay 4 gool iyo gool oo ay guusha ay ku raacday ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Raasan oo Raja ayaa laga adkaaday waxa ciyaarta la bixiyay ilaa 3 xasaan gabagabada ciyaarta ayaa shaqaaqad dhacday Mohamed Kenled iyo kabtanka kooxda kubadda cagta ee Raja ayaa xasaan la siiyay markii ay ciyaarta isku gacan qaadeen sidoo kale golayaha kooxda kubadda cagta ee Raasan isagana waqtiga isagoo daahinaya la arkay isagana waxa la siiyay calaamada xasaanka ama roosaha marka shalay Maxamed Soomaali oo ciyaarta garsoorey waxa uu bixiyay ilaa iyo 3 rooso waxyaabaha cajiibka ah ee guushii Raasan laga soo diiwaangeliyay waxa qayb ka Raasan in Mohamed Kenled ugu dhaliyay saddexladiisii ugu horeeyay ee horyaalka Soomaaliya Premier League sanadkiisii ugu horeeyay horyaalka ayuu ciyaaraya sidoo kale waxa uu dhaliyay shalay saddexley marka laga tago goolkiisa sagaalaad ee ciyaarta ka hor ciyaartaasi wuxuu la 6 gool shalay wuxuu dhaliyay 3 gool marka 9 gool ayuu tagay saddex kulan soo socdo ka maqnaanaya maadaama red card ama casaan toos ah ciyarankaas la siiyay si lamid ah ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Rajo iyagana ilaa hadda way ka soo kabalaayiin guuldarooyinka saxiiga ee kooxda soo gaaraysa waxayna u badan tahay kooxda Rajo in sanadka soo aadan ay u laabanayso horyaalka heerka labaad ee Serie B maadaama hadda ay tahay kooxda ugu hooseyso marka ciyaartii shalay xaalkeeda sidaa ayuu ahaa sidoo kale nimankan Rajo waliba Maslax iyo waliba maxamed xasan cabdullaahi ayaa nagasta match ka ah kulamada soo aadan maadaama 3 jaal ay u buuxseen galabta horyaal Elman ayaa ciyaaraysa waxay la ciyaaraysaa kooxda kubadda cagta Jasiira Sports Club shantii kulan ugu dambeeyay labadan kooxood ee saarkan afar kamid ah waxa adkaatay kooxda kubadda cagta Elman halka kulan kale barbarac ay galeen Jasiira Sports Club ayaa ku dhiban in ay ka adkaato kooxda kubadda cagta Elman inkastoo hadda ciyaaruhu isbedeleen oo kooxaha yaryarka qaarkood hadda ay ku dhigayaan midnimo la xasuustaa inay ku dhigtay kooxda kubadda cagta Hegan si la mid ah Dekada iyo Elman marka Elman Jasiira in isku dhigaan waa laga yaabaa oo fursad ay hogaan ku imaan karto kooxda Elman loogu dhigo markaan fiirino kulamadii ugu dambeeyay ee labadan kooxood isarkaan sanadkii 2017 laba jeer isarkeen ciyaarta koowaad waxay dhacday 10kii bisha Maarso sanadka 2017 waxay ku soo ilaatay 7 yeber Elman ku badisay lugta labaad sanadka 2017 waxa la ciyaaray 28kii bisha 7 sanadka 2017 4 yeber Elman ku badisay sanadkii la soo dhaafay 2019 laba jeer ee kooxaan isarkeen lugta koowaad waxay dhacday 15kii bishii Maarso sanadka 2019 3-2 Elman ku badisay lugta labaadna waxay dhacday June 20keeda sanadka 2019 2-2 ay ku kala tageen sanadkan 2020 lugta koowaad waxay wada kulmeen labadan kooxood
lixdii bishii January sanadka 2020 halna waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta ee lugta labaadna galabta oo 12 bisha Maars ayay balansiyay marka labadan kooxood Jasiira haddii ay ka adkaato kooxdan waxay noqonayaan in muddo aysan ka adkaanayso afjar halka Elman ay 5 kulan ugu dambeeyay ee kooxdan iska hormaay ay guul gaaraysay afar ka mid ah way adkaadeen kulan number bardhac ayay galeen Elman iyo Jasiira Sports Club galabta horyaalka Soomaaliya Premier League taariikh aad iyo mahadsan tahay habka aad nala socodsiisay kulamada horyaalka Soomaaliya shalay laga ciyaaray iyo kuwa galabta la ciyaari doono markaana kulamadii xalay dhacay horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League وهاجاك هدي مركان أن قلنا كل ما ديش حالة لقى عياري هريال كقارد يوروب كواحد دافع عن إذا تشامبيون ليجا اللي فبرو أيال لقى عربت التشامبيون ليجا كدي مركز صدق يلا بلغو قراعي كوري جيدا أنفيل تاسو معنا إن أدلتك مدريد يكسر بعدي ودار أهان أبريل لبا دي لوج العياري وريجا بوك بحد اللي تبنك قول هاي جون قالك أبلك أيا إن بدن قيبتي هره لا عياري ليفربول أسوق بدبادي فرصة بدن أو جول في شيء لكن واحد تاسي بدشة دقيقة أفرتني أفراد مركي ليفربول أو قدبينتي شبق الصوت تابتي دقيقة أفرتن يسدحاد أليكس تشامبرلين أيا كوبات كروس إذا أوجربك كسوق قد واحد مدح كل أفتي أما تاسو جولك أدلات مدريد كوردي وشان اليوم كاسو كل كنت أقول أفتي كدمنا جول هي أبلغ أود واي إن أو دقيقة دي أبرتنز دحد جول كاسبت باديو عيارتنا وحي نغطي هلي إبر كل الإثارة كل المتعة يمكن الآن جول ليفربول الأحمر يسجل الهدف الأول ومدرجات أنفيلد تهتز الآن لأن مركي waxaa hal mar sare kacay sawaxankii garoonka Anfield iyadoo neef weyn ka soo fuuqday jamaahirta ku sugnaa garoonka waxaana qaybta hore lagu kala nastay Liverpool oo hal iyo eber ku hogaaminaysa ciyaarta daqiiqadii 50 tababare Simone ayaa ciyaarta wax ka bedelay asagoo ka saaray Diego Costa waxaana ciyaarta bedel ku keenay qad dhaxaa Marcos Llorente laakiin wariyaanka reer Spain ayaa si aad ah uga carooday bedelkii lagu sameeyay daqiiqadii 90 daqiiqo ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay hal gool iyo waxba oo Liverpool hogaanka ay ku heysay taasoo ka dhigneed in isla 30 daqiiqo oo dheeri ah loo baahdo maadaama kulankii hore hal iyo eber lagu soo garaacay Liverpool ciyaarta 9 daqiiqana ku soo dhamaatay hal gool taasoo la micnaha in hal iyo hal ciyaartu ay tahay oo labada koox min hal kulan iska soo badiyeen daqiiqadii afaraad daqiiqadii 30 daqiiqo dheeriga ahaa ayaa lagu daray waxa hogaanka u dhibay Roberto Firmino kaasoo kubad oo madaxa ahayd oo ku dhacda birta kadibna dib u soo laabatay shabaq koobsaday waxaan ahayd goolkii ugu horeeyay oo dhaliyay garoonka Anfield tan xilli ciyaareedkan waxaana ciyaarta u ka dhigay laba gool iyo gool aan dhahay laba gool iyo waxba laakiin tababaraha laakiin dabaaldegii Liverpool oo isleeyahay waxaad u soo gudubteen Champions League wareegga baxa ee 8 ayaa waxa dhacday in daqiiqadii 97 daqiiqadii dheeriga ee lagu daray ciyaarta gool oo dhaliyay Marcos Llorente ayaa wuxuu ku aamusiyay taageerayaashiisa waxan ka badnaa ee ku sugnaa Liverpool kuwaas oo afkooda juuqda oo gabay Llorente ayaa ciyaartan wax ka dhigay laba gool iyo gool الخطر على ليفربول الله سجل أتلتيكو مدريد يسجل في أنفيلد waxaa Liverpool soo qoysay goolkii labaad ee Marcos Llorente ka dhaliyay dhamaadkii qaybtii hore oo ah qaybtii lagu daray daqiiqadii dheeriga ah oo dhamaanaysa oo wax yar ay ka dhiman yihiin hase yeeshee gool kale oo baashaal ah oo ciyaarta ka dhigay 2-2 ayuu mar kale shabaq qoobsaday Alvaro Morata oo ciyaarta bedel ku soo galay ayaa goolkaas si fiican u caawiyay kadib markii Bruno counter attack oo Atletico Madrid iska saartay oo si fudud ugu baasay waxaana daba marsiiyay gooliyaha kooxda Liverpool Alvaro Morata ayaa dhamaadkii daqiiqadii dheeriga wuxuu dhaliyay goolkii saddexaad iyo goolkii saddexaad ee Atletico Madrid iyo goolkii koowaad ciyaartan wuxuu ka dhigay 3 gool iyo 2 oo lagu garaacay kooxda Liverpool goolkii taageerayaasha Liverpool niyad jabiyay rajadiina ka riday goolkaasna wuxuu ahaa goolkii ugu dambeeyay ciyaarta waxaan ku soo
qatamay Alvaro Morata oo bedelta ku imaaday Liverpool goolna ka dhaliyay goolna ku caawiyay. الاسبان بهدل الاسبان مباراة جديد تلعب كرة القدم ويمكن جول موراتا واتلتيكو مدريد ذل الرتس في si kastaba ahaatee Alvaro Morata ayaa dhamaadkii ciyaarta sidaas wax ka dhigay. Atletico Madrid ayaa Liverpool wadar ahaan waxay uga badisay 4-2 iyadoo sidoo kalena ku soo badisay lugtii hore ee Madrid 1-0 xalana waxay ku badisay laba gool iyo 3 gool waxayna ka dhigantay in kooxda Liverpool hore gadaal loogu maray lugta koowaad Champions League. sidoo kale waxa la ciyaaray kulan ka tirsan kale oo Champions League waxa soo wajahay labada koox ee ka soo kala jeeda wadanka Faransiiska iyo waliba Jarmalka. kooxda PSG ayaa xalaq qaabishay kooxda Borussia ciyaar lugtii hore ku soo dhamaatay 2 gool iyo gool oo ay Borussia ku soo badisay. saacadii markii xalal imada garoonka PSG ciyaartii kubad cagta ee loo sugayay u dhaxaysan labadan koox oo ay ku ciyaarayeen taageero la'aan maadaama cudurka coronavirus cabsi laga qabo darteed taageerayaasha garoonka loo diiday garoon maran oo labadan koox ay ku ciyaarayeen. ciyaarta ayaa ku soo gabagabowday 2 gool iyo waxba. Borussia waxaa laga saaray inay u soo gudubto wareegga 8aad ee Champions League ee bugbaxa. daqiiqadii 28 ayaa Neymar gool ugu shubay kooxda kubadda cagta ee Borussia. goolkaasna waxaa si fiican u soo caawiyay Angel Di Maria waxaana ahay جول تستا الراسية الحكم يعطي إشارة عن خال دي ماريا نفذ الركنية جول عن طريق نيمار يفعل kooxda kubadda cagta Borussia qaybtii hore ayaa lagu kala baxay waxaana daqiiqadii 45 inta aan la marin kaambiyada ama qaybta labaad goolkii labaad ugu shubay Juan Bernat kaas oo caawiyay Pablo Sarabia. ciyaarta ayaa labadii lug ee celcelis ahaan waxay ku soo dhamaatay 3-2 ee ku adkaatay kooxda PSG ayaa haatan u soo gudubtay wareegga 8aad halka Borussia ay iskaga hartay koobkan. waxa xalay si toos u soo wada baxay kooxaha Atletico Madrid iyo PSG halka Liverpool iyo kooxda Borussia ay iskaga hareen koobkan. intaasna hadii aan ugu gudubno kulamadii xalal laga ciyaaray horyaalka qaaradda Yurub waxaa noo soo socda koobka Europe League oo caawa la ciyaari doono dib ayaan isku soo laaban doonaa balse markaan farsamada وهجاج ولي واحد جالسين سن برامج كحلقة عيارها الراديو هملا مقالة مقدشة مركان هدي عن فيرنا أنكو ناس السعودان وربحنا كلا يكمديهن كل ماذا عاول لقى عيار الدونا يوروب ليجا أن حقيقين ككلن هدي عن فيرنا ليفربول يكحدك بدأ عكت أتلتيكو مدريد كحدك بدأ عكت ليفربول أيام مركي وهو الرئيسي كقول درستي طبعا كلن إن أي كوبا ديسو جرونكا إن كوبا ديسو جرون كذا تاني يلا بدو كون طبعا كلن oo hore ayaa saas dhacday inta macalinka lagu magacaabo under club oo kooxda maamulaya kooxda Liverpool ayaa dhumisay garoonkeeda markii lugtii ugu horeysay ee Champions League iyadoo la garaacay Anfield waxaan ugu dambeysay in xilligan kala la garaaco amal bugbaxa lugta koowaad 2014 kooxda Reds ayaa ku guul dareystay in ay wareegga 16 in ay u soo baxdo tan iyo 2006 kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa shantii kulan ugu dambeysay 6 kulan ugu dambeysay waxay badisay 5 kamid ah hal kulan oo kaliya ay qasaartay waxaana kulankaasi garaacday kooxda kubadda cagta ee Juventus oo ku garaacday lugtii hore intii lugtii hore ku soo badisay 2-0 lugtii dambana waxa lagu garaacay 3-0 xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay koobka UEFA Champions League tartanka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid 13 kulan oo koox ay booqatay kooxaha England 13 jeer 2 jeer bar way soo badisay 7 jeerna waa la soo 2 jeer waa badisay 7 jeer bar dhacay gashay halka 4 jeerna ay qasaartay kooxda kubadda cagta ayaa unbeaten ah tan iyo 2010 markaasna waxa ugu dambeysay kooxda kubadda cagta ee soo garaacda kooxda Liverpool bishii Abriil 2010 kooxda Liverpool ayaa Champions League wareegga bugbaxa ee lugta koowaad waxa ugu dambeysay in sidaan loo garaaco 2005-2006 markaasna waxay ka hor imaadeen kooxda Benfica markii ugu horeysay tartan Europe ah ee la iska dhaliyo
afar gool waxay ahayd ciyaartii xalay ma dhicin weli in tartan Yurub ah oo Amsterdam lagu daray la iska dhigay afar gool kooxda kubadda cagta laacibka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid Llorente ayaa noqday laacibkii labaad ee inta bedel ku soo gala dhaliya laba gool waxaana sidaas sameeyay 2009kii Aguero laacibkan ayaa loo diiwaangeliyay laacibka labaad Firmino ayaa dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay 20 kulan oo Anfield ku ciyaaray xilli ciyaareedkan waxaana ugu dambeysay 2019kii markaas oo kooxda Porto ka dhaliyay waxaana laga joogaa 337 maalin laacibka kooxda kubadda cagta Liverpool Wijnaldum Aldium ayaa 5 gool ka qayb qaatay 5 kulan oo ugu dambeysay Champions League 4 gool iyo dhaliyay wareega bugbaxa tan iyo 2017 Liverpool goolayaashooda ayaa waxay sameeyeen qaladaadka ugu badan waxayna ka badiyeen koox walba oo ka ciyaarta qaaradda Yurub labadan goolay ayaa ah Adrian iyo Cruz laacibkan Adrian gooliyaha kooxda Liverpool ayaa 3 qalad sameeyay halka kalena uu sameeyay 4 qalad Liverpool laacibkooda Alex Oxlade-Chamberlain ayaa si toos uga qayb qaatay 4 gool Champions League xilli ciyaareedkan asagoo dhaliyay 3 halka oo halna caawiyay waan markiisii ugu fiicnay tan iyo 2014 markaas oo ka tirsanay kooxda kubadda cagta ee Arsenal Firmino iyo Llorente kaliya waxa u dhaxaysay 167 daqiiqo markii Atletico Madrid ay ka jawaabeen goolkii oo Firmino ka dhaliyay waatay xaqiiqooyinka haddii aan fiirino soo koobno kulanka PSG kooxda PSG ayaa la garaacin 8 kulan ay ugu dambeysay ay la ciyaartay kooxaha ka socda wadanka Jarmalka halka 7 kulan ay guuleystay hal kulan barbardhax ayaa gashay kuwatar finalka Champions League tan iyo 2016 kooxda kubadda cagta PSG ayaa sidoo kale gaartay kuwatar finalka 6 jeer 6 xilli ciyaareed oo kala duwan waana oo waxayna ka badan tahay koox walba oo ka ciyaarta horyaalka Faransiiska ama wadanka Faransiiska Neymar ayaa si toos uga qayb qaatay 14 gool 8 kulan oo gurigiisa ku ciyaaray Champions League kooxda PSG 10 waa dhaliyay halka uu caawiyay 4 kale waana mid aad loogu amaanay wuxuu dhaliyay laacibka lagu magacaabo Neymar ayaa waxa la leeyahay waa markuu joogo garoonka kooxda PSG ama kooxda garoonkooda waxa uu aad mataqaanaa u jecel yahay inuu kooxaha gool ka dhaliyo kooxda PSG ayaa gaartay quarter finalka 6 jeer kala duwan haddaan aan fiirin sanadahaas 1994 waxayna ka badan tahay koox walba ka socoto wadanka Faransiiska kooxda PSG ugu dambeyntiina laacibka lagu magacaabo Di Maria ayaa si toos uga qayb qaatay ama ugu lug yeeshay 6 gool Champions League xilli ciyaareedkan 2 waa dhaliyay 4na uu caawiyay waxaana markii uu sameeyay ugu dambeysay 2013 markaas oo Real Madrid ka tirsanay 8 gool ayuu sameeyay Neymar ayaa si toos ugu lug yeeshay 38 gool 28 kulan oo uu ciyaaray kooxaha PSG iyo Barcelona 20 jeer Barcelona gool uu dhaliyay halka oo PSG-na uu 8 siiyay wuxuuna dhaliyay 26 gool halka uu caawiyay 12 kale wali waxa dhageysanaysan barnaamijka xulka وهاجا عاو waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan koobka Yurub Liga oo caawa ah koobka labaad ee Yurub qaaradda Yurub maadaama xal la ciyaariyo UEFA Champions League caawan waxaa lagu madalsan yahay in la ciyaaro kulamo ka tirsan koobka Yurub Liga hana ayaa si qodobadaas la socotay oo noo soo jeedinaysa waa maasantahay liibaan waxaa caawa wada ciyaari doona dhammaan kooxaha ka tirsan tartanka Europa League balse kulamada ugu waaweyn marka aan eegno naadiga Manchester United waxay marti u tahay kooxda Laski waxa ka maqnaan doona laba xidig markaas qadka dhexe u maareeya waana ciyaaryahanka Thomas iyo sidoo kale ciyaaryahanka lagu magacaabo Marvin dhaawacay jilibka ay ka qabaan halka daafacyada lagu magacaabo Peter iyo sidoo kale ciyaaryahanka Philip ay labaduba ku seegayaan kulankan ganaax dhanka kale United-ka waxa ka maqnaan doona kubad sameeyaasha Paul Pogba iyadoo xidiga heerka caalami ee dalka Faransiiska uu wali dhaawac kaga maqan yahay aqowga halka weeraryahanka Marcus Rashford
uusan sidoo kale u safrin kulanka Australia ka dhacaya maadaama uu kasoo kabanayo dhaawac dhabarka ah Odion Ighalo ayay u badan tahay in uu kusoo bilaaban doono safka hore ee kooxda Man United maadaama ay ka maqnaanayeen doonaan ciyaaryahanada Anthony Martial, Paul Pogba iyo Marcus Rashford tan waxay noqon doontaa markii ugu horeysay isku arkaan labadani kooxood ee u dhaxaysa kooxaha Laski iyo Manchester United waxa ay sidoo kale ay noqon doontaa naadiga Laski markii ugu horeysay oo ay martigeliso ama ay la ciyaarto koox ka socota dhanka England Manchester United wali waxay sugaysaa luminta kulan ay ka hortagayso koox reer Austria tartamada Yurub 7 guulood iyo hal barbara ay 8 jeer oo ay aragti ka haysataa waxayna guul gaaraysaa mid kasta oo kamid ah 6 kulan ee ugu dambeysay ee xiriir ahaa xaqiiqdii kaliya ka hortagitaanka ee marka la eego kooxaha ka socda Ukraine oo 6 guul iyo 2 barbara ay ka haysato naadiga United-ka ayaa ciyaartay kulamo badan ama la ciyaartay hal koox oo ka socota ama waa iraahday koox ka socda hal wadan waxaana leeyahay wax qasaar ah ma aysan kala kulmin qaabilitaanka marka la eego